الله أديك آمنا يو ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والله ليالك سو دواada إن شاء الله تعالى برنامج kale qayb kale barnaamijkan aan maaragtay aan wadnay walaalayaal waqtigii Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu maalmaha kamida asaga oo fadhiya maxkamadda muslimiinta oo kala xukuminaya dadka muslimiinta baaya waxa soo galay maxkamadii uu fadhiyay laba wiil ah oo walaalo ah oo jiidayeen wiil bay jiidayeen markaas Umar bin al-Khattab wiilasha u tagay wuxuu yiri labada wiil محل عنقان وجيديسان وحيدا عمر يا أمير المؤمنين ويل كان أبهنا يودلي عمر ويل كبوكو جيستي ويلو لوضن ويل أول الله أبوه هذا مدي شيء وحيري نعم أبوه هذا واندلي لكن في خلط بانكو دلي وحيري أنا وحانا هانين حول ليا مال كم إذا حوله يقو ميل دقنايو ومتقانا إسكي صعدا xoolahaygu waxay soo dhaxgaleen dhul uu lahaa aabahooda intuu xanaaqay buu maaragtay dhagax qaatay wuxuu ku dhiftay mid kamid xoolahaygi anigana caatifad iyo xanaaq bay qaaday isla markiina dhagax baan qaaday waxaan ku tuuray aabahooda madaxii baan ku dhiftay aabihiisa sidii buu ku dhintay Umar bin Khattab lawadi walaal buu ku jeestay wuxuu yiri maxaad rabtaa oo maxaad jeceshihiin ma cafinaysaan ma wixii kala cafin mayno bal waxaan rabnaa in maaragtay oo dhiigeena laga siiyo oo xukunka islaamka la mariyo markaas Umar bin Khattab wiilkiiba u jeestay wuxuu yiri walgu xukuminaya bal ma leedahay dardaaran ama wax ma rabtay inaad maaragtay aad lagu sameeynta maaragtay lagu dilin wuxuu yiri nacam wiil baa jiro oo walaalkii ah oo iga yar ba waxaan rabaa in 3 maalmood liisiyo si aan taga meel oo dhul ah oo lacag aabaheena maaragtay naga dhintay oo noo maaragtay naga qariyay inaan maaragtay tago meesha uga soo saaro wiilka walaalkii كذبنا إن شاء الله تعالى وان سوى الله بندونا عمر وآمين وآخيري معقول ما هنا ما رتب فتحنا تقدمين كان مركب ويلكي يو نبي عمر يويلش وحيد أحفر يمال المحكمة ذا والله ليال ويلكي با أنت وجهتك المحكمة ذا وحيد دو ما لهلا يقف ما أنت إقدمين تا صدح مع الموضة تذكي قدام بوحاو مدح ذا لولك بمارت وجيدين وحي ماركتي وجوه معنا وجوه ذا مارت وكتشيدين أنا أيضا وماركتي وش يجيان ماركت مرمنا ماركت قف هذيك عمل أو خاينة ماركتين دمين ونقرنا يهذا صار لتهاجي بحرف باقي عن تهاجي مركل فيرينا قذال وحون قضي من سحابي جليل ولير هذا أبو الدر الغفاري قعنت أبو تهاجي وحير أنا دمين كان قناية أبو الدر قعنت أبو تهاجي تذكر وياها بين أبو الدر وسحابي جليل كأها oo ma garanaysaa intaas oo qabiilooyin ama taqaan islaamiyay markaas wiilkii uu baxay maalintii koowaad baa dhacday oo dhamaatay wiilkii lama hayo maalintii labaad baa dhamaaday wiilkii wali ma imaanin maalintii saddexaad ah iyadoo casar la maray lawadii walaalaba waxay soo mareen gurigii Abu Dar al-Ghifari way madaxeen Abu Dar waqtigii wal gaar maxkamadda nagay Abu Dar xeeri suuga maalintii waxay ku dhamaatay maghribkii أبو در مخرب كل جار هذا وحير كده من تبو ماشي هذي أيضا لفديو ماشي ودتك إياه بينهن ما أنت ما أبو در الغفاري بوحلود اللي دونا دم بيو ماركت قلي ويلير أيضا ماركت وحير كده من المغرب كي بويلكي وحكسوا قلي البابكي دتك وياها بين ويا فرحين وحيرين دونا محاديع دونا ما ويلكي لو دم دافي دونا ما لفسح دونا ما لديل دونا ويلكي مركوسوا قلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لي أبي ويلكي بويري روحيلو ويلو معاك شو عليي أنا يقف متقانا أو جاسوس كم شو درين عيدا كم شو درين ما هذيك شو عليي وحيري لا إله إلا الله وحنكعب شذي إن مالن أيدتك إيمان دونان أو إليه دونان ويل ير ومسلم أو حوق له بلن بوقاذي كذي بلنتي بوقفني هذا الكي كعصلاتي فإسلام مركي وحكو جيستي أبو در الغفاري أبو در أبو در ما حد ويل كان مقرنا يساء هذين دمير ونقطي وحيري وحنا أركي قف مسلم أو دواتي حسن مركاسة وحندي إذا إن مالنا ليه إن الشيء قال لي هذا قف مسلم وحو أركي ولا أركي مسلم كأه أو دواتي حسن ما نعاونين مركاسة عمر هذنا وحكو جيست لودي ولال بنتي هذا الشفيرين بوحير هذين تذكر نوع عنها الدون كدي يكونوا ليهن
oo dad walaalahooda ay dambi dhaaf weydiistaan say ku dhici kartaa inay dambi dhaaf weydiinin maartay u dambi dhaafin oo khaladkii u galeen wax afinin walaalayaal saan bay muslimiinta ahaan jiray waagii hore khilaafadii Umar ibn Khattab kalgaceelka inay jaceelka ka dhaxay muslimiinta waxay u kasabtay ay heleen inay maartay ay soo qabsadaan wadankii China oo ilaa iyo mataqaana Southern France ay gaareen walaalayaal waxaan keenay jaceelka isku qabaan walaalayaal isticlaano qof dhibaatada aragta caawi qof xanuunsada aragta u duceey walaalayaal وكونوا عباد الله إخوانا walaalo noqdo walaalayaal والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته